لا يا هذا برنامج كان waxaan isdhihi karaa wuxuu ahaa barnaamij oo aad u muraafacaad badan oo yahay in xilliga xilli ka horeeya la qabto sababta aan saa u leeyahay waxay tahay waxa isugu yimid oo marka koowaad isku bartay marka labaadna dood ay ku dhex marayso waxay ahaayeen gabdhihii heer qaran iyo heer federaal iyo heer qaran iyo heer dowlad goboleed shaqaalaha rayidka ka tirsanaa iyo qolihii bulshada ururada bulshada rayidka ayagana ka socdeen sababta saas loo sameeyayna waxay ahayd in la ogaado gabdhaha caqabadaha ka haysta inay shaqo tagaan oo shaqaalaha rayidka ay ku jiraan sababtoo ah in badan shaqaalaha rayidka gabdhaha way aad ugu hooseeyaan mar walba iyo shaqooyinka guud ahaan dhabaantood marka waxa ugu muhiimsan ee halkan laga dhaxlay waxa ka soo baxay in gabdhaha maanta ay haystaan commitment weyn oo go'naansho ah oo ah in gabdhaha ka shaqo loo tago gabdhaha seniorka shaqooyinka guuleystay la wadaagay iyo kuwa kale ee aan wali seniornimada gaarin laakiin hadda shaqooyinka ku jira inay caawiyaan kuwa soo baxaya in la helo macaahid gabdhaha lagu baro xirfadaha because gabdhaha ma ahan kuwa u taga waxbarashada kaliya ee formalka dhigta informal education in la helo oo institutionno mar walba furan oo mar walba la heli karo oo gabdhihii ay wax ka soo baran karaan sida jaamacadaha ay u soconayaan ay wax uga baranayaan gabadha ayadoo hooyaa haddana ay isku dabari karto shaqada aniga rajad badan aan qabaa wixii halkan ka soo baxay waxyaabihii ka midka waxay ahaayeen oo aad iskula garfeen in la helo sharci gabdhaha qayb shaqada kamidana u xira qaybta kalena haddii aan la xireynin equal opportunities iyo wiilasha iyo gabdhaha xafiisyada ay ku simaan sababtoo ah wasaaradda haweenka haween baa ku magacaaban haweenka ku magacaaban yihiin shaqaalaha almost 48 rag waaye 51 gabdho waaye macnaha boqolkiiba waa waxba isma dheera wixii way iska daban yimaadeen haddana haweenka gaar u leh wasaaraddaas waxaa laga yaabaa wasaaradda inay agaasimo guud ka tahay uu ka yahay wiil wasaaradda haweenka ku magacaaban hal gabar oo agaasimo guud ma jirto marka waxyaabaha aadka aan ugu rajo weynahay ee kulanka ka soo baxa waxaa in sharci la helo shaqada equal opportunities la keenayo haddii kale u xadidayo gabdhaha qaybo gaar oo shaqooyinka ayaga leeyihiin because rag waxaa arkaysaa genderka ka shaqeynaya department gabadhii wiilkan kufsiga ka adeegayo uma soo sheegan karto wixii ku gaar because gabar kale ay shaqada inay timaado qof walba position ku habboon inuu tago wiilasha iyo gabdhuhuna ay shaqada u simaan waxa ugu weyn ka sugan